Balwadka waxaa ka jira sheekooyin jacayl oo xiiso leh, balse hal shay oo daawadayaasha aad u xiiseeyaan ayaa ah arrimaha jacayl ee ku saabsan xiddigaha shirkadda Balwadka. Inkastoo xiddigaha qaar ay awoodeen inay helaan dhammaadka noloshooda farxadda leh ee jacayl, haddana waxaa jira jiliyaal dhowr ah oo xiriirkoodu ku dhammaado keliya in warbixinno laga qoro. Sidaasi darteed waxaan idinla wadaagayaa xiriir saddex geesood ah oo dhex maray qaar ka mid ah xiddigaha shirkadda Balwadka. Tani waa qaybtii labaad. Aan ku bilaabo Abhishek Bachchan, Karishma Kapoor, Sanjay Kapoor. Markii Abhishek Bachchan iyo Karishma isku qaadeen jacayl, waxaa loo arkayay heshiis jacayl oo aad u weyn, waxaana la filayay in ay midoobaan. Labada qoys ay ka dhasheen ee aadka loogu ixtiraamo shirkadda Balwadka, laakiin kadib waxyaabihii labadooda ka xumaaday ee ahaa duruufo daahsoon, waxay ku qasbanaadeen inay ku kala tagaan ballanqaadkoodii iyagoo aan wax sharaxaad ah ka bixinin. Waxyar kadib, Karishma waxay guursatay ganacsadaha lagu magacaabo Sanjay Kapoor. Si kastaba ha noqotee, labaduba mar dambe ma wada kulmin. Salman Khan, Aishwarya Rai, Vivek Oberoi. Salman Khan iyo Aishwarya Rai waxay ahaayeen lamaane jacayl aad u qurux badan wadaagay markii ay duubayeen filimkii Hum Dil Ke Jhuke Sanam, laakiin waxyar kadib arrimuhu waxay noqdeen kuwo xumaaday kadib markii Salman Khan lagu eedeeyay inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba u aflagaadeeyay gabadha uu jeclaa. Aishwarya Rai kadib waxay xiriir jacayl la wadaagtay Vivek Oberoi, laakiin xiriirkoodu wuu dhammaaday isla markii uu bilowdaba, sababtoo ah Aishwarya Rai keliya Vivek Oberoi waxay rabtay inuu gaashaan u noqdo si Salman Khan ugu nabad gasho. Sareena Wahab, Aditya Mangoli, Gangana Ranaut. Gangana Ranaut waxaa lagu tilmaamay halgamaa markay la kulantay jacaylna u qaaday ninka 20 sano ka weyn ee Aditya Mangoli, Soomaaliduna u taqaano Shankar ama Indhabaliil. Aditya wuxuu qabay Sareena Wahab, wuxuu ahaa aabe, laakiin taasi kama aysan hor istaagin inuu jacayl u qaado agtaradan yar. Si kastaba ha noqotee, arrimuhu waxay noqdeen kuwo dib isku rogay kadib markii uu soo baxay war ku saabsan inuu jirdil u geystay atriishadani. Jacaylkooduna wuxuu noqday daan dabangaale. Dino Moria, Bibisha Basu, John Abraham. Bibisha waxay xiriir dheer la lahayd Dino. Waxyar kadib markay kala tageen, Bibisha waxay bilowday inay shukaansato ninka isla dhigayeen filimkii Jasm, waa murqaaniga Balwadka ee John Abraham. Wuxuu xiriirkoodu socday ku dhawaad 10 sano ka hor inta aynan soo gabagabaynin. Dino iyo Bibisha weli waa saaxiibo, balse John Abraham isma arki karaan hadda. Labaduba mid kasta nolol kale ayuu samaystay. Shilpa Shetty, Akshay Kumar, Tawakal Khanna. Jacayl ayay isla wadaageen Akshay Kumar iyo Shilpa Shetty intuu uu socday duubista filimkii Main Qilaadi To Anari. Shilpa waxay si qoto dheer ah oo waali ah u jecleed jilaagan, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in Akshay Kumar uu xiriirkooda u arkayay saaxiibtinimo waxaan dhaafsiisanayn. Tawakal Khanna ayaa murugo gelisay Shilpa, taasi oo soo dedejisay in ay Shilpa candhuufteeda dib u laqdo. Kadib Akshay Kumar waxa uu guursaday Tawakal Khanna. Sareena Katrak, Sanjay Khan, Sinad Aman. Sareena waxay ka tanaasushay shaqadeedii moodalka ahayd si ay ula noolaato Sanjay Khan. Waxay wada dhaleen 3 gabdhood oo hadda caan ka ah India, oo ay ka mid tahay Susanna Khan ama Hrithik Roshan xaaskiisii hore. Sareena markay uur lahayd wiilkooda Sanjay Khan oo isagana Balwadka ka tirsan, warar xan ah ayaa sheegaya in Sanjay uu xiriir la lahaa Sinad Aman mar ay ka wada shaqaynayeen filimkii lagu magacaabayay Cabdullah. Waxaa la rumaysan yahay inay xitaa lahaayeen nikaax qarsoodi ah. Si kastaba ha noqotee, arrimuhu si xun ayay ugu dhammaadeen Sinad iyo Sanjay. Kadib markii uu muran soo dhex galay, Sanjay wuxuu ugu dambeyn go'aansaday in xaaskiisa iyo caruurtiisa u haro. Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtii labaad. La soco qaybta 3.